taariikhdu markay ahayd 40 bishii 11 goorey saacadda ahayd 12 habeenimo gacan ku dhiigle nuux axmed ismaaciil oo loo yaqaano nuux cadaani wuxuu tegey guri uu leeyahay mustafa xasan kafaadhi waqtigaas guriga uu ka maqnaa hase yeeshee waxaa joogtay marxuumadda loola jiray allah u naxariistee nasteexo ismaaciil aadan ina xabiibo xasan 25 jir ah gabadhaasi ayuu guriga ku garaacay way ka furtay kadibna gacan ku dhiglu markii qolkeedii gashay ayuu faashkii uu sitay wuxuu ku dhuftay 2 jeer kaga dhuftay qadaadka dhulka ay ku dhacday gabadhaasi isla goobtii ku dhimatay allah u naxariisto wuu ka soo baxay guriga jaliisu ka soo baxay wuxuu tegey guri isagoo uu ilaaliyo oo ku yaala xaafadda Goljanno oo ay leedahay gabadha Canabileey gacan ku dhigluhu wuxuu gabadhaasi ku dilay hinaasi maadaama ay ka dhaxaysay jacayl ka dhaxay labada marxuumada isaga wuxuu taleefankii iga qaban weyday mashquul bay ka dhigtay buuri taasi awgeed ayuu guriga u yimid oo uu ku garaacay oo faashka qadaadka daba kaga dhuftay 2 jeer allah u naxariistee markuu falkaasi dhacay ciidanka booliisku howlgal aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen waxay tageen goobtii u deganaa gacan ku dhigluhu waxay ka soo saareen faashkii wax ku dilay iyo tooriye kale haystay garankiisii oo dhiig leh waxaa keenay xarunta CID-da waxaa lagu sameeyey baaris aad iyo aad u qoto dheer leh markay booliisku baareen faashkii oo dhiigii leh markay arkeen garankiisii oo dhiig leh gacan ku dhiglaha aad baa loo weydiiyey waxaanu qirtay isla markiiba in uu isagu dilay gabadhaasi isagoo biirkiisa imaankiisaba qaba oo aan cidda khasbin waxaanu maxkamadda horteeda ka bixiyey qiraal sidoo qaba artiga 68 halkaa ka qaabta si ula kaca ayaanu gabadhaasi dilay allah u naxariistee gacan ku dhiglaha kiiskiisa waxaa loo gudbin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maxkamadda iyo xeelanaynta awoodda u leh qaadista dembigaasi bulshada waxaan u sheegaynaa in ay ku hadlaan maaha propaganda inay fidiyaan inaanay wax aan jirin sheegaan maaha waxaan jirin sheegaan ay barihii bulshada ku faafiyeen waxyaabo propaganda ah oo ceebeen ah oo ah been aan siraynaatoon lahayn waxa weeye booliiska in laga warsigo intay wax baarayaan laakiin booliiska aan baarista dhamaystirin in ay propaganda iska fidiyaan waxaasoo kale waa dembi waxa loo dul qaadan kara maaha ciddii dambe lagu qabtana waxa weeye waa lagu qaadayaa waxaana dadweynaha uga digaynaa inay waxyaabaha noocaas oo kale ka digtoonaadaan tan labaad baryahan waxaa baraha bulshada kusoo noqnoqonaya beyj xaaraan ah oo aanay ciidanka booliisku lahayn beyjkaas oo lasoo dhigayo waxyaabo laga iqsoodo oo aanay ciidanka booliiska samaynayn dadweynaha ku qorina waxaan leenahay war beyjkaas waxbaa ku qorina waa been annagana ma khuseeyo shaqo kuma lihin beyjka saxda ah ee ciidanka booliisku leeyihiin waxa weeye waa beyjka uu ku qoran yahay ciidanka booliiska la ay tigta madow saaran tahay kaasaa sax ah oo ay ciidanka booliisku ku shaqeeyaan ciddii wax aragta ama doonaysa inay wax soo qorto beyjkaa ku soo qorto laakiin waxaan dadweynaha reer somaliland ee aanu jecelnahay ee booliiska sida wanaagsan ula shaqeeya ee booliiska wixii dhacaa u soo sheega waxaan leenahay war ka fogaada beyjkaa kale ee had iyo jeer soo qoraya waxaan jirin